muuqaalkan waxaa idinkuga sharxi doonaa sida window loogu shubo flash. ugu horeyn inta aadan ku shubin windowga flashka waxaa jira shuruudo badan oo loo baahan yahay in aad ogaatid. waa in aad soo dejisaa windowga. muuqaalka xiga waxaan idinkula wadaagi doonaa goobaha ugu wanaagsan ee laga soo dejiyo windowska. sidoo kale waxaa waajib ah in aad haysatid softwareda loogu talgalay in markaasi windowga fileka ahaa ee imageka ahaa la qaado kadibna lagu shubaa flashka. flashkaasna laga dhigaa mid bootable ah. bootable macnaheedu waxa waaye in flashkaasi markii la suro computerka uu soo kacayo xaaladda uu ku soo kacayo computerka intuusan u gudbin hadiska xogta ku jirtay in uu markaasi kalo flashkii kadibna lagu tusaa xogtii markaasi windowga ku jirtay. waxaa loo baahan yahay in aad haysatid flash qaadkiisu ama markaasi spaceka u banaan uu dhan yahay 16 GB. sida sharciga u ah flashka markii lagu shubay windowga softwaredan kuu suurtagelinaya in flashka lagu shubo window waxay u kala baxaan 2 nuuc. labada nuucba waxay ka codsanayaan dhowr nuuc waa jira hadda 2 nuuc aan ku tusi doonaa oo caan ah. marka labadaas nuucba waxay ka codsanayaan in flashkii format la dhaho. haddii ay xog kugu jirto please flashkaasi xogtaasi kala bax oo meel kala soo dhigo. ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa in aan soo furo this PC. waxaa halkan ii yaala flashkayga. space ahaan flashkayga waxa uu dhan yahay qaadkiisu 16 GB. waxaan soo gali doonaa halkan waxaan ku tusi doonaa softwareda kuu suurtagelinaya in aad markaasi window qaadid kadibna aad ku shubtid flash. waxaa halkan ku haystaa 2 software oo kala ah Fintoy iyo Rufus. labadan software waxay ku kala duwan yihiin 2 howl ahaan markii loo eego way kala duwan yihiin. midkan Fintoy wuxuu kuu suurtagelinaa hawsha uu qabanayo kan. howl ahaan waa isku mid laakiin sida ay u shaqeynayaan ayaa kala duwan wax yar. Fintoy wuxuu kuu suurtagelinaa flashkaaga in aad ku shubatid dhowr window. Windows 7 aad ku shuban kartaa, Windows 8 aad ku shuban kartaa, Windows 11 aad ku shuban kartaa, Windows 10 aad ku shuban kartaa. halka Rufus uu kuu suurtagelinaya kaliya in aad ku shubtid flashkaasi hal window. labadoodba howl ahaan waxay ka codsanayaan in aad flashka format dahdid. waana labada software ee hadda ugu badan ee la isticmaalo. although ay kala fiican yihiin howl ahaan aniga aan jeclahay Fintoy, laakiin Fintoy wuxuu kugu xirayaa windowga nuuciisa ama waxa jira markaasi 2 nuuc ay u kala baxaan windowska, kuwa 32 bit ah iyo kuwa 64 bit ah. Fintoy wuxuu aqbalaa oo kaliya 64 bit, ma aqbalayo 32 bit. marka software dhowr nuuc jiro hata inkastoo horumarin ay ku socoto farshanidiisa kalena aan tijaabin doono in loo soo daayay in kale. halkan waxaan ku haystaa 1.24 farshanka la yiraahdo. sidoo kale waxaan haystaa Rufus oo ah 2.16 farshanka la yiraahdo. insha Allah waxaan ku hormariyaa in aan isticmaalo Rufus. ugu horeyn waxaan ku leeyahay double click kadib waxaan leeyahay yes. wuxuu soo qabsan doonaa si automatic ah flashkii la dhahay my flash weliba letters e wato culeyskiisana ama inta uu qaadi karana waa 16 GB. halkan ha ku saarnaata MPR partition NTFS oo new technology file system idana waad u daynaysaa oo ma bedelaysid. galiya waxaa laga codsanayaa in aad soo markaasi dooratid imagekii ama windowgii. halkan ayaan click ku leeyahay. kadib waxaa imaan doonaa folderkii igu jireen windowskii. waxaa ku shubi doonaa halkan Windows 10 oo 32 bit ah. waan doortay isagoo Rufuska 32 bit iyo 64 bit labadaba uu awoodaa in uu ku wada shubo flashka. marka waxaan dooranayaa halkan windowgii fileka ahaa. ana ka iloobine waxaan muuqaalka xigo idinkugu soo markaasi bandhigi doonaa ama ku falanqeyn doonaa sida loo soo dejiyo windowyada.
muuqaalka xigana sidoo kale waxaan kusoo markaasi bandhigi doonaa idinku sharxi doonaa windowyadaasi in noocyada u kala baxaan iyo kombiyuutarada ay ku shaqeeyaan. Although ay jiraan dad badan oo iga soo codsaday in aan markaasi soo hormariyo muuqaaladaasi, laakiin waxaa habboon in aad barato ugu horreyn sida flash loogu shubo window. Marka hadda halkan waxaan doortay filekan, kadib waxaan dhahay open, kadib waxaan iska leeyahay oo geliya start, kadib waxaan sii leeyahay okay. Marka shuruudan maxay tahay? digniin xogta ku jirto dhan my flashka la dhahaye will be destroyed, waa la burburin doonaa. marka waxaan leeyahay continue. hadda waxaa bilowday ku shubistii oo flashka liigu shubay windowgii. inta ay socoto waxaan kaa codsanayaa oo aan mar labaad ku xasuusinayaa in aadan kombiyuutarkaagu diminin, sidoo kale aadan suubin lock ama aadan u dirin sleep ama aadan isku laabin. inta uu socdo please lightkiisa ha shidnaado, ilaali dabka kombiyuutarka, lana soco xaalatan ilaa ay ka dhammaato. oo ay qaadan doonto 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo wax aanan ka badnayn insha Allah. haatan waxaa lagu guuleystay in markaasi flashkaagii lagu shubo windowga. sidoo kalena ogow in flashkaagii magaca laga bedelay, waxaana magaciisa lagu bedeli doonaa windowga aad ku shubtay magaca uu lahaa. halkan waxaa kaaga soo bixi doonta application markii hawsha uu dhameeyo laguna guuleysto ready. markaas waxaad iska leedahay close. inta aanan ka bixin shaashadan waxaan ku xasuusinaa in muuqaalka soo socdo aan kaga hadli doono Fintoy, waxyaabaha aan ku toortay iyo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay. inkastoo uu iska xadidan yahay, haddana operating systemyada lagula shubi karo flashka oo keliya ay yihiin 64 bit nooca ah. waxaana aad u tixgelinaa haddii aad codsi haysatid ama aad doonaysid mowduuc shaki kaaga jiro in aan ka soo hadlo, inta aan awoodo in aan research ku suubiyo kadibna aan ka soo faalloodo insha Allah. waxaad codsiyada igu soo diri kartaan qayb ciwaanada hoos ku xusan iyo barta aan ku leeyahay Facebooka. sidoo kale qaybta commentigana waa noogu reebi kartaa insha Allah. waxaan ku laabanayaa flashkayga. haatan halkan flashkayga waxaa igu jiro Windows. haddii aan computer suro waxaa markaasi noqonaya flashkayga mid bootable ah. haddii aan ka bixiyo computerka oo aan dib u soo surana waxaa isbedeli doona sawirkiisa. sidaad arkaysid hadda halkan waxaa bixiyay flashkayga oo aan dib u soo suray computerka. waxaa isbedelay iconka uu lahaa flashka. calaamadan waxay tilmaamaysaa waa mid bootable ah. haddii ayaan falanqeeyay ereygaasi mar labaad haddii aan ku celiyo, waa mid marka computerka la suro xogta ku jirta computerka inta uu soo kacayo la soo akhrin karo insha Allah. muuqaalkan halkaas ayaan ku soo koobay.